Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kusoo dhawaada janalka Ombi Technology ee ka baxa casharada ICT-ga waa anigu Maxamed Cali Bilaal. Sidaan hore ugu wadnay koorsada Windows Server 2019 waxaan maanta sharxi doonaa ama aan configuration ku sameyn doonaa waxa loo yaqaano Active Directory Domain Services. Si dib ayaan u dhexgali doonaa ayada kaliya ma ahe waxaan ku dari doonaa waxa loo yaqaano domain name server service ama DNS ama domain name system labadu waa dhigi karaa. Active Directory waa maxay? Active Directory waa database noo haynaysa userska iyo computerska iyo network resources sida printerska iyo wax oo dhan. Wuxuu leeyahay waxaan sameyn doonaa waxa loo yaqaano domainkaas ayaan create gareyn doonaa anagoo aan sameysan doonaa forest ugu horeeya. Waa maxay forest? way noo imaan doontaa. Dan domainkaas wuxuu wax noo tarayaa waxay tahay in system walba oo yaala shaqada company oo kale adaa u shaqeysid ama shirkad ay kala tahay si aad computeradaas dhan ay ugu xirmaan systemkan serverkan waa inaad domainka aad wada gelisaa. Domainkan aan sameyn doono ee forestiga hore ah markii aad ku jongareysid oo systemyada dhan aad ku xidhid serverka ayaa waxaad ka maamuli kartaa all systemyadaas ku xiran oo dhan adoo siinaya. Waxaan sameyn doonaa server la yiraahdo server 01 oo DHCP gana ah, mid kale oo read only ah. Read only waa maxay? Catalog waa maxay? waxa dhan waa noo imaan doonaan insha Allah. Marka waxaan u baahanahay in aynu gudaha u galno server manager ka soo furno. waxaan u baahanahay inaan ADDS DNS ka aan soo install karayna ama role and features ka nagu dooranayna inaan soo dejino. Inteerta inoo soo bixaysa ayaan sugaynaa. Marka halka kan aan joogno kan koowaad magaciisa waxaa la yiraahdaa waa ID Active Directory waa Win Server ID. Work group meeshaas ay ku qoran tahay. Hadda work group ayaa noo qoran laakiin marka aan domainka sameyno halkaas ayaa wax arki doontaan domainka inaan ay ka soo bixi doonto. Okay, add role and feature ayaa leedahay. Marka halka kan waa ka tagi kartaa, halka kan manage ayaad ku dhufan kartaa. Add role halka kan waa dhigi kartaa and feature. Next ayaa leedahay. Next server selection hal server ayaa meesha ku haysanaa. Next ayaa leedahay. Marka waxaan u baahanahay Active Directory Domain Services. Marka add feature ayaa leedahay. Then DNS server ayaa ku darsanaysaa. Add feature ayaa leedahay. Next ayaa leedahay. Next then install ayaa leedahay. Then wuu noo soo degayaa installationkaas noo dhamaystirayaa. marka uu noo dhamaystiro ayaan promote ku sameyn doonaa insha Allah biidhnilaahi tacaala kariim. waxaan isku soo noqon doonaa markii uu installationka noo dhameeyo. wuu noo dhamaaday installationkii. waxaan u baahanahay inaan configuration ku sameyno. marka Active Directory-ga waxaan ku sameyn doonaa configuration. marka halkan saa u aragtid ADDS ayaa noogu soo samay iyo DNS. marka midkiiba gaarkiisa ayaan sameyn doonaa. marka hadda waxaan sameyn doonaa Active Directory anagoo ku dhufanayna promote this server to domain controller. Okay, marka halkan ku dhufanay wuxuu nageeyay saan u jeedno wizard-kan ayaa noo soo baxday. marka waa in aad fahantaa deployment configuration-kan wayna fahantaa administration-kan wayna fahantaa. wuxuuna yiraahday ma waxaad u baahan tahay domain controller ma waxaad ku dareysaa domain controller domain jiray miya domain controller ku dareysaa oo maya already domain ma aan haysan. ma waxaad u baahan tahay domain cusub ma waxaad ku dareysaa forest hore u jiray waa maya. waxaan u baahanahay in aynu forest cusub sameysano. forest waxa weeye
waa domainkeena ugu horeeyay markaan sameynayno, waa meesha ugu horeysay root domainkeena weeye. root domainka wuxuu yeelan karaa subdomain buu yeelan karaa, waana arki doonaa child domain wax la yiraahdo, waxyaabo badan ayuu yeelan karaa. marka add new forest markaad tiraahdo root domainkeena ayaa halkan wuxuu noo noqonayaa onbit dot local. marka next ayaa leedahay, ma wuxuu ku leeyahay ma waxa u baahan tahay catalog miyaa ka dhigaysaa mise read only. marka waan arki doonaa wizardka ku xooga ee noo soo bixi doona. xoogaa patience uu kaaga baahan yahay, dulqaad yar iska dulqaado. everythingkana meenay waxay u baahan tahay inaad u sabartid marka aad sameynaysid wax kan. marka xaggan functionality-ga levelka Windows xoogaa intuu dhameynayo ayaan sugaynaa. forest functionality levelka Windows Server 2016 ayaa ugu dambeeyay, 19ka weli kuma jiro. marka 16ka ayaa u daynaysaa. haddii aad ila fiirisaan specify domain controller capability-ga halka kan wuxuu ku leeyahay DNS server ayaad u dooranaysaa this domain this ADDS active directory kan DNS ayuu noqonayaa. global catalog uu noqonayaa. waa maxay global catalog? global catalog waxa weeye markii aad samaysid, hadda ka soo qaad halka kan waxa weeye muqdisho oo kale, halka kanna waa mareykanka oo kale. waa hal shirkad ayaa waxay ku leedahay muqdisho iyo mareykanka. labadaas branch marka loo baahan yahay in aad samaysid this muqdisho baartigeeda in aad ku install galaysid active directory laakiin read only clear kan kalena uu yahay global catalog. global catalog waxa weeye wuxuu haynayaa partial qayb, wuxuu ka haynayaa markii read only-ga joogtid. read only-ga marka qof user soo samaysto qayb ayuu hayaa active directory marka userku wuxuu kasoo gali karaa asagoo jooga muqdisho ayuu authorize wax u yeelan karaa America shirkada branch ku yaal. taasay naga caawinaysaa. marka sidiisaas ayaa u daynaysaa root domainki way kan. marka passwordka restore mode-ka waxaa leedahay c123 $, ABC123 $. tan waxay passwordkan waxa weeye markii restore mode-ka oo aad rabtid inaad restore mode ku samaysid oo waxaa kan ka xumaadaan restore mode markaad rabtid inaad samaysid passwordkan ayaa ku galaysaa. marka next ayaa leedahay DNS option. delegation for this DNS cannot be created because the alternative parent zone cannot be found. okay dhib ma lahan, next ayaa leedahay because of wax DNS weli ma ayna samayn. net BIOS-ka halkaas onbit kaliya ayaa nooga soo baxaysa. marka onbit .local ma noqonayso. net BIOS-ka only name-ka ayuu qoraa kaliya, wuxuu caddeeyaa only name-ka. okay next ayaa leedahay baadka ayaa noo soo baxaya meeshii database-ka noogu store gareynayay wax walba, meesha logo noo galayay everything. marka waad ka bedeli kartaa meesha jecesha ayaa dhigi kartaa, laakiin ani meeshiis ayaan u daynayaa. next ayaa leeyahay review ayaa lagu sameynayaa. view script waa kan halka kan. marka waxaad dhigi kartaa save as desktop-ka ayaad dhigi kartaa adoo u bixinaya ADDS. okay save ayaa leedahay. next ayaa leedahay. marka next prerequisite check ayuu fiirinayaa. then haddii aan ka gudubno prerequisite check-aas install ayaan dhahaynaa. saas ayaa domainka noogu samaysmayaa. waxayna iska dulqaadanaynaa then install ayaan dhahaynaa.
then all prerequisite check passed ayuuna yidhaahday. marka install ayaa leedahay. installka markuu noo dhameeyo uu noo finish kariyo insha allah automatic ayuu wuxuu iskugu dirayaa report uu dib isku soo daarayaa. then waxaan configuration ku sameyn doonaa DNS insha allah. then isaga automatic wuxuu isugu diri doonaa report. markuu dib isku soo daari doono insha allah ayaan isku soo noqon doonaa. then computerkeena markuu report soo sameeyey restart soo sameeyey halka kan ayuuna keenay. markuu halka kan keenay waxaan leenahay in aynu galno. marka haddii aad ila fiirisaan halka kan waa on-bit administrator. on-bit waa maxay? on-bit waxa weeye domain control kan sameyna weeye. marka waxaa ku galaysaa waxa weeye password kan sameynaya ku galaysaa. marka waxaan fiiri doonaa bal in aynu bal waxaan sameynay ay hagaagsan yihiin. active directory keena waxa dhan inay joogaan inay shaqeynayaan ayaan fiirinayna. marka ugu horeysa waxaan idin tusayaa local serverka tag. local serverka work group hadaya work group ee noo ahayd hadeer onbit.local ayay noo tahay saad arkaysaan. domain controlkina wuu noo samaysan yahay alxamdulillah weeye. marka waxaan u baahannahay horta refresh wax dhamaado xoogaa slow weeye I don't know. marka tools ayaa tagaysaa. toolskaas waxaa ku jira all wax walba waxaa ku jira tools halkan ku jiraan. marka halkan kama tagi kadib haddaan halkan active directory kusoo waxsaan ayaa isoo baxaya. marka halkan kama tagi kadib meesha aad ka tagi kadib waxa weeye tool ayaa tagaysaa active directory users and computers ayaa kula fahansan. marka wizard ayaa noo soo baxaya halka kan no blurry. marka haddii aad halka kan ila fiirisaan halkan active directory users and computers iyo serverka namekiisii iyo maxaa ku lifaaqan domain controlkii. marka halkan maxaa saaran domain controlkii. marka domain controlka hierarchically way hoos yaalaan. halkan built in way waxa ku dhisan way userska waxyaabaha ku dhisan hyper-v everything kaas way maaragtaa. computerska weli wax computer nooguma jiraan. hadhowda marka computer kusoo xirmaan oo domainka lagu soo joon gareeyo oo lagu soo joon gareeyo domainkan ayaa arki doontaan computerada xagga kusoo sharxi doonaa. domain controllerka waxa weeye waa kan haysano oo DC typeka domain controller typeka noo yahay muxuu yahay global catalog. wax set ah weli ma aynu samayn. wax set ah weli ma aynu samayn. okay foreign security policy users wax users weli ma haysan. administrator ayaan haysanaa built-in. insha allah users baanu samayn doonaa waxyaabo badan ayaan samayn doonaa. waxaan u baahannahay in aynu DNS aan ku darno. DNS-ka inaan configuration ku sameyno laakiin videoga ayaa nagu dheeraaday. marka inuu videoga aad u dheeraaday ayaan diidayaa. next lecture ayaan waxaan ka dhigi doonaa DNS si full ayaan DNS kusoo diri doonaa insha allah. wassalaamu calaykum.